السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada aan jecelnahay meel walba aad joogtaan waa idin salaamay. Maanta waxaan rabnaa inaan wax ka dhahno waa sidee deegaanka ama guryaha Imaaraadka Carabta. Horta Dubai ma ahan wadanka. Dubai waa caasimada labaad, caasimada koowaad xataa ma ahan, caasimada koowaad waa Abu Dhabi. Marka nolosha Imaaraadka Carabta waa sidee, guryaha sidee loo degan yahay. Horta waxaan u qaybinaynaa ilaa iyo dhowr qaybood aan u qaybinaynaa. Haddii aan ka hadalno midka magaalada gudaheeda waa qaali. Guriga iska daayay qolkii ayaa waxa ay tahay 3,000 dirham ayaa qolkii hal qol kaliya ah. Markii la dhaho magaalada gudaheeda siiba qaybta dayra, qaybtaas kaleetood baar Dubai waxaa laga yaabaa inay ka qaalisan tahay. Marka $3,000 qiimihiisa sidaan noqonaysaa waxaa waaye waa $817 waa calaa qolkii waay, iyadoo weliba dayra ay tahay. Marka kaliya waxaan ku noolaan karo qofka iskaabulada ah oo aanan family la socon. Familada Soomaalida waxay degaan Sharjah ama Shaariqa siday Soomaalida dhahdo, iyo waxay degaan Cajmaan. labadaas magaalo degaan. labadaas magaalo nolosheeda waa adiga meel deegaan loogu talagalay waaye. nolosheeda xataa caadiyan Dubai kaleetood way ka jaban tahay. waxyaabaha kaleetood dhankaas loogu cararana waxay tahay dadka badanaa waxay wataan gawaarida baakinadeeda xagga waa free. meelaha qaar oo lacag way jiraan, laakiin waxaa la helaa guryo baakinadooda ay free ay tahay. laakiin Dubai sidaasi ma ahan. Dubai guryaheeda baakinadu waa lacag, waa inaan lacagta la baxdaa. taasi waa isla fahanaa rajaynayna. Marka haddii aan qiimeyno waxa lagu degan yahay Sharjah iyo horta habka guryaha lacag bixinta, horta deposit ma lahan. ayaga saas ku fiican yahay. lacag deposit ma jirto. laga yaabo in laga qaado 1,000 dirham oo korontada iyo adiga biyaha iyo waxaas laga yaabo in deposit ahaan lagaga qaado. adiga 1,000 dirhamna adiga lacag ku dhow waxaa waaye $300 camal ah. habka aad lacagta ku bixinaysid guryahana waxay tahay horta sanada loo xisaabiyaa. sanadkiina waa 28,000 oo dirham. sida aad ku heshid waa 28,000 30,000 siday tahay. waa hadda 28,000 oo dirham haddii aan qiimeyno waxay noqonaysaa $7,629 waayo waa sanadkii. qaabka loo bixiyana waxay tahay saddex bilaa loo bixiyaa. jeeg ayaad dhigaysaana 3 bil ayaad jeeg dhigaysaa. 3 kale hadday dhammaato haddana jeeg kala dhigaysaa. qaabkaasi ayaa loo bixiyaa. marka markii laga hadlo imaaradaha kaleetoodna waa isla sidaas oo kale, laakiin Dubai nolosheedu waa qaali, guryaheeduna waa qaali, looma soo dhawaan karayo. deegaankuna waxay degaan Sharjah iyo meel la dhaho Cajmaan ay degaan. Cajmaan xataa waxaa laga helaa guryo aad iyo aad u raqiisan oo xataa kuwa aan ku sheegay lacagta aan hadda ku sheegay lacag ka raqiisan ayaa la helaa. marka waxaan rajeynayaa in wax uun aad ka fahantay. wixii kaleetood dheeri ah waxaan la kaashanaynaa asxaabta intii iga fahansan. fikrado badan aan isku daraynaa, kadibna waan idiin soo gudbinaynaa. halahaas inaa ila fahanteena rajeyna. taasi waxay ahayd qaybta markaan ka hadlayno Shaariqa iyo Cajmaan ay ahayd. laakiin markaan ka hadalno Dubai guryaha, horta meesha aad degan tahay ay ku xiran tahay, waa ku kala duwan tahay. tusaale ahaan kaleeto areadan Banias iyo Al Ras iyo Al Riqa iyo ku kala duwan yihiin. marka guryaha badanaa Banias areadeeda waa meesha badanaa ay Soomaalidu ay u badan tahay. guryaheeda markii baartamindadoo kale la dhaho aa qabsanaysid oo kaleetood waxaa waaye 90,000 dirham waaye. meesha 28,000 ay ka ahayd Cajmaan iyo Shaariqo, meeshaani waa 90,000 dirham waaye. 90,000 dirham lacag ahaanna intaasay keenaysaa. waxaa waaye $4,523 ayaa sanadkii bixinaysaa. marka hore horta waa laga kaashayaa.
marka kaleetana waxaa loo bixiyaa sida idinkugu sheegay saddex bilood loo bixiyo. 3 bil walba jeegaa dhigaysaa, 3 bil walbana jeegaa dhigaysaa. Marka 3 bil kadib jeeg haddii aad dhigi weysid ama akoonka la fiiriyo uu eber noqdo, ganaaxa adiga kugu dhacayo. Korontada iyo biyahana waa adiga sidaa u isticmaasho ayay ku xiran tahay. intaas waa isla faanaa rajeyna kola soo gal raali noqda. Marka haddana waxay ku xiran tahay guriga aad degayso sida uu yahay. Haddii uu yahay guryaha cusub mar dhow la dhisay, lacagta intaas way ka badanaysaa. haddii aad degaysin guryo yacni oo qadiimi ahna waxaa macquula lacagta intaas inay ka jabnaato. hadba waxay ku xiran tahay meesha aad guriga ka degaysid, iyo waxay ku xiran tahay guriga aad degayso nooca uu yahay. ma guri cusub oo mar dhow la dhisay mise waa guryihii hore ah. hadda gurigan aan idinka hadlayo waa guri adiga meel dhexaad ah oo mar dhowna la dhisin adiga, laakiin dhowr sano dhisan ayaan ka hadlaya. laakiin guryaha aadka oo cusub waa ka qaalisan yahay. haddii aad dhahdin waxaan degayaa dhankan oo Baar Dubai waxaa la dhahaa dhankan magaalada ay aadka uga shidan tahay sida Burj Khalifa iyo dhankooda. haddii aad dhahdin aaday waa kasii qaalisan tahay 100,000 iyo dhowr iyo 100,000 adiga 200,000 iyo 150,000 meelahaasay noqonaysaa sanadkii. marka waxaan rajeynayaa inaan yacni wax uun fikir guud uun aad ka heshay. guryaha dadku cusubtaa subscribe saar, janalku waa janalkaaga. asalaamu calaykum.